waxaan ku riyooday ayuu qofkaani leeyahay waa ummu sakiyo aan u maleynayaa waxaan ku riyooday anoo ii soo socdo iqaniini rabo yaa macshar aljinni walinsi ayaan akhriyey eygii wuu dhacay wuuna isku xaaray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين ونكسن هدي أي مالين كوتاهي هبين ونكسن هدي أي هبين كوتاهي. هالك هادي قد داوني سوا channel كيغا معلن موسى official channel. هدي channel كوية هاي مركي كوغو الرئيسي وصوب وقت كل تيك توك كتميدي سبسكرايب تاهي المامن إيو قنبالك إنا فروتو سيو كوسو قارا موقالة دينا عن صادقنا إن شاء الله تعالى. كوار انتانا برنامج كينا قرين مرة البوحان اسحسوسينا واسحسوسين مدن inay jirto fursad inuu ku afurinayno dadyow muslimiin ah Soomaali ah oo tabaaleysan oo tabar yar oo aan awoodi kareenin afur inay helaan ama saxuur inay helaan. haddii hadaba aad doonayso fadlan waxaa si xushmad leh kaaga codsanayna inaad nagala soo xiriirto nambarada aynu ku xusi doono qeybaha hoose. sidoo kale waxaad ogaataa qof walbo qoys walbo $75 ayaynu ku qiimeynay lacagta ku bixeyso afurkiisa bisha Ramadaan oo dhan. haddii aadan awoodin $1 $2 $3 qof walba wixii uu awoodo ayuu markaasi noo soo diraya insha Allah. dadku way soo bateen dadka in badan maalin walba dadku way soo badanayaan comments iyo su'aalahana way badanayaan marka tabcan dee ani kama wada jawaabi karo. dadka qaarkood waxay leeyihiin macallin oo muuqaalkii ka horreeyaan su'aal ku soo weydiiyay fadlan iga soo jawaab ma ka dhex raadin kari muuqaalkii ka horreeyay su'aal aad igu soo weydiisay ma ka dhex raadin kari. fadlan isku day inaad muuqaal walba su'aashaada aad soo dhigtid. ha dhihin macallin halkaasaan su'aal kuu soo dhigay halkaas iga soo jawaab macallin su'aasheeda iga soo jawaab macallin fiiri. ha dhihin waa laga fiican yahay. ha ka caajisin mar walba inaad su'aashaada oo dhammaystiran aad soo qorid. maalin waan soo qaadanaya waan arkaya laakiin caqli yaraan iyo doqonnimo yaanay kaa noqon inaad tirahdid macallin su'aalan ku soo weydiiyay iga soo jawaab luuqan su'aal ka soo weydiiyay intaan su'aal ka soo weydiiyay muuqaalkii hore su'aal waxaas waa laga fiican yahay. على كل حال waa boosinayaa insha Allah ta'ala dadku aad ay u badan yihiin ilaa iyo 10 qof aan soo qaadanaya mar walba insha Allah. maanta 10 qof aan soo qaadanaya waxa ugu horeeyo Aamino Xuseen waxay leedahay Aamin Xuseen waxay leedahay assalaamu calaykum macallin Muusa waxaan ku riyooday Masjidul Aqsa banaankiisa ama barxadiisa aniga oo sajaadad inta dhigtay oo ku dukanayo salaad. Masjidul Aqsa in lagu dukadaa ama qofka uu ku riyooda isagoo oo Masjidul Aqsa ku dukanayo waa dhaxal qofkaasi isaga ah wuxuu helayaa dhaxal. qof oo markaasi oo dhaxalkiisa uu mudan yahay ama aabe ama hooyo ama qof uu maal leh ama lacag leh dhaxalkaas u soo hooyanayo. aaba wax kaga dhimanayo hooya wax kaga dhimanayso adiga dhaxal caynkaas oo kale ah ayuu helayaa. ama haddii kale qofkaasi waxa weeyaan adiga baari waayo oo waa qof waalidkiisa baari u ah. marka haddii lagu riyoodo Masjidul Aqsa aragtida la arkayo kaliya waxay tahay al-miirath dhaxal inay tahay. su'aashan hibana soo weydiisay assalaamu calaykum macallin waxaan ku riyooday anoo qaawan oo bilaa dhar ku socdo waxaana ahay gabar xijaaban. macnaheedu waxa waaye su'aashan qofkaasi isaga ah haddii uu yahay taajir inuu faqrinayo haddii uu yahay xaas in la furayo. sababtoo ah dharku waa asturnaan saas daraadeeda haddii aad tahay gabar iyadu laakiin waxay leedahay waxaan ahay gabar xijaaban waa la qabi karaa gabarna way noqon kartaa. jawaabtu markay waxay noqonaysaa haddii aad lacag leedahay waa faqrinaysaa haddii lagu qaban waa lagu furayaa haddii laakiin inta dharka adiga oo qaawan oo aan xishoonaynin ama xishoonayo fadeexo waay. ilaahay kama ingan ilaahay nama fadeexay adduunka ilaahay nama fadeexay. hani cadey waxay leedahay sheekh gabar ayaan ahay waxaan ku riyooday maalin ciidul fidri ah nin aan aqoonin oo qol aan ku wada jirno ii sheekeynayo qosol iyo lacag warqad ciid mubaaragna isiinayo. gabadhaani haddii ay murugsan tahay murugada ilaahay waa uu ka qaadayaa. gabadhaani haddii ay wada qaldan ku jirto way toobad keenaysaa toobadeedana waa la aqbalayaa.
gabadhan haddii ay taajirad tahay ama ganacsi ay ku jirto oo ay khasaartay maalkeeda way usoo noqonayaan ama wax ka fiicana la siinaya. u fiirsaya maxaan ku macnaya maxaan dhahay riyada ah gabadhan la siinayo midaan ciidulfidriga macnihiisu wuxuu yahay riyada lagu riyooda iyada oo ciidulfidri ay tahay alkhuruuju min alham, qofkan in murugo ay deenayso. lacagtan uu ku siinayo ciidulfidriga ciid mubaarak ahaan uu kuu siinayana maxaa waaye in haddii adigu ganacsi aa ku jirtid ama aabbaha uu ku jiro ama reerkaaga ganacsi ay leeyihiin oo ay khasaareen inay khasaaraha ay ka kabsamayaan oo ay soo noqonayso tacwiid in la siinayo. inaa fahantaan rajeynaya insha allahu tacaala. sagal maxamed waxay leedahay assalaamu calaykum, naag aan aqaano ayaa ii timid riyada, daanyeer ayay noqotay waana gubay. daanyeerka waa qof ceeb badan, ceeb oo dhan aa ku jirto gudihiisa, waa qof ceebihiisu ay badan yihiin aa daanyeerka lagu macneeyaa. daanyeerka haddii uu ku qaniino ama haddii sida meeshaan aad ku qoratayba oo aad gubtay aad ka guuleysatid waa xanuunsanaysaa kadibna waa caafimaadaysaa. yani daanyeerka wuxuu ramsi ahaan u taagan yahay sidiisaba qof ceeb badan oo ceebihiisu ay badan yihiin, waa qof been badan, waa qof xun, waa qof dadka isku dirdiro, qof ceynkaasoo kale ah la yihahdaa daanyeerka. hadduu kaa guuleystana waa xanuunsanaysaa waadna kasoo kabsamaysaa, haddaad ka guuleysatana waxaa waaye dee cadowgaagaad ka guuleysata. waayahay nimco maxamed waxay leedahay assalaamu calaykum macalin muuse, waxaan ku riyooday anoo gabar yar dhalay oo naasahaygana caano badan ka lisaaya, weliba naaska midig. anigu waxaan ahay inan aan weli guursan. sheekhow khayr allah ku siiya iisoo fasir. gabadha iyada oo aan la guursan oo aan la qabin haddii ay ku riyooto iyada oo gabar dhashay, horta waa bishaaro, waa khayr, waa war farxad leh. naaskan caanaha ka da-ayane waxaa weeyaan macnaheeda in ilaahay maalka uu ku waasicinayo, arsaaqda inuu ilaahay ku waasicinayo, taasoo macnaheedu uu yahay waxaa ku guursanayo nin lacag leh oo ilmo kaa dhalayo, ilmihiisa u nuujinaysaa. inaa fahantaan rajeynaya naciimo. qofka kalen u gudbaya insha allah. qofka kale waxaa weeyaan ayaan waxay leedahay assalaamu calaykum shiikhow, waxaan ku riyooday ani oo tahriibayo oo dad badan la socdo oo rabo in aan raaco doon, aadna uga cabsanayo. ii fasir khayr allah ku siiye. dadkan aad la tahriibayso ee aad raacayso haddii ay yihiin dad wanaagsan oo fiifiican, haddii ay yihiin hanuunkoodaad raacaysaa, way ku hanuuninayaan, way ku toosinayaan, way ku saxayaan, ilaahayna dembiga wuu kuu dhaafaya. haddii aanay ahayn may dadkan aad la tahriibayso haddii ay yihiin ee doonta aad la raacayso, laanna doontu waa annajaah, waa badbaado. waxay kaa badbaadinayaan dadkani waddo qaldanay kaa badbaadinayaan oo aad ku socoto. haddii laakiin dadkaasi ay dad wanaagsan ay yihiin, haddii laakiin dadku aanay wanaagsanin oo ay dad xunxun ay yihiin, marka iyadaa waxa weeyaan wax kale iyo qarow kale waa. assalaamu calaykum macalin muuse, riyada aroos anoo jooga iisoo fasir. arooska haddii uu yahay mid music iyo wato iyo wax caynkaasoo kale ah, meeshaas arooska uu ka dhacay dhimashaa ka dhacayso, qofaa ku dhimanayo ama qofaa ka dhimanayo. laakiin haddii uusan music iyo waxaas aanu wadanin waa arrin fiican waaye. arooskan aad joogto haddii music iyo balaayo iyo tumasho meesha ay ka dhacayso, geeriya ka dhacayso, haddii kalena maya. waayahay sagal waxay leedahay shiikh, naag aan aqaano ayaa waxay ugu noqotay dib qolooc oo waan dilay, dubkaana ka dhacay. dib qoloocu waxaa waaye cadow tabar daran oo daciif ah, himadiisu ay daciif tahay ama hankiisu uu meel sare aanu gaarsiisneyn. cadow hankiisu aanu meel sare gaarsiisneyn oo xan badan waaye. haddii aad dishidne waa guul kuu soo hoyanaysa oo aad ka guuleysanaysid cadowgaaga. aan ku celiya mar kale, dib qolooca, bahalkan dib qolooca waa cadow xan badan, waa qof cadow ah oo xanlo oo xan badan oo dirdiraalo ah. dilkiisa iyo ka guuleysashadiisuna waxaa waaye cadowga inaad ka guuleysanayso. siciida waxay leedahay shiikhow, markaste aan seexdo waxaa iga hor yimaado libaax, ama waan dilaa ama waa iga nixinaa. waxaad ka badbaadaysaa wax aad ka cabsanaysa haddii ay jiraan, waa ka badbaadaysaa. waxaadna gaaraysaa cilmi iyo xikmad. ilaahay wuxuu ku gaarsiinayaa meel sare, cilmi iyo xikmad ayaadna ka gaaraysaa. waa sida macnaha uu yahay waaye. xataa haddii aadan adiga qof cilmi maanta u dhow iyo xikmad aadan ahayn, xitaa rayada fasilkeeda saas waa. rayada fasilkeeda waxaa waaye
marka aad waxaad ku riyootay libaax ama inuu ku cabsi geliyo ama inuu ku dilo soo maaha macnaheedu waxa waaye inaad ka badbaadayso maxay waxaad ka badbaadaysaa waxaad ka cabsanaysay horta waa ka nabadgelaysaa oo waa ka badbaadaysaa maxaa kuu soo haray waxaad kaloo gaaraysaa heer cilmi iyo xikmad aad ku hadasho ugu dambeyn waxa waaye waxaan ku riyooday ayuu qofkaani leeyahay waa ummu sakiyo aan u maleynayaa waxaan ku riyooday anoo ii soo socdo iqaniini rabo yaa macshar aljinni walinsi ayaan akhriyey eygii wuu dhacay wuuna isku xaaray macnaha waxaa waaye eygu waa cadowtinimadiisu ay daciif ay tahay iska qeylqeylaya eyga markino wah loo iska leeyahay afkaasuu ka qeylqeylaya mogi haddii loo fadhiisto oo dhagax inta loo qaato loo waabiyo wuu ka cabsanaya marka eyga waa fulay waa cadow fulay ah waaye ama qof bakhiil ah waaye marka adiga waxaad ku riyootay eygaan kugu soo socdo inuu ku qaniinuu raba inuu qof waxa waaye raba inuu ku shukaansado oo bakhiil ah oo cadow ah oo dantiisa la yaqaano dan kale aanan aqoonin riyadan marka digniin waaye waxay ku leedahay qof yahay is-ilaaliya ku leedahay halkaasina waxaa inuu ekaaday 10 su'aalood oo aan maanta ugu talagalnay inaan ka jawaabno weli ilaa hadda way ii suuroobi laadahay inaan maalin walba soo qaataan rabaa 10 لكن نبنا إن شاء الله تعالى وقت وندين سين دونا وقت بدنا إذن سين دونا ما هدي أنت اللي لسه جارتي أو سن نظيفة إلى ضاوتي يقولن رياستي كنفة رياستي محن ذيك عصنا يا فضلا إن عاد شركة رسان برنامج هذا قروح ده بدن له سيدو كله كومنت في عنه اللي فهمي كرو أو هل صدر إلا بصدر عن كبدنين يسوق قرأ هدي كومنت جا إرادة أنا وكبودا يا كومنت نكست لين هاي نكست إذا سام كجرا مركب ورك صوجا جابية كومنت إن شاء الله تعالى عن نوبلنا تلفون نذا وعتان كيرايا واتساب كيرايا خير الله ينسيه أنت عن مقال حي عن كل ميونه وحن إذن كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.